goobta la iskugu imaaday odayaal iyo garmadoobe dhalinyaro iyo gabdhaheena dhammaan golaha dadka jooga galad allaheena weeye haddii garyaqaanka beesha inaan garabkiisa istaagno gurmad aan u samayno go'aan weyn lagu gaaray ruuxii gees ugu leexdo gar waxaa loogu yeeshtay ganaax xoog laga qaado gunta dhexdeeda la ciqaabo gorgor cambaar leh laga yeelo maxaan qabanayaa haddii aan xilkaan ku guulaysto insha allah mudan yaal iyo marwooyin haddii aad codkiina kalsoonida siisaan waxaan ugu adeegi doonaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan beelweynta reer Banaadir si wada leeyihiin عندي
كله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة مسرح أنفسه بينه قلبي فرن gacmo furan niyad sami iyo waliba marxadad kusoo wada dhaweeyno garyaqaan murashax garyaqaan Ahmed Mohamed Sheikh Nuur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markii aan iskoolka dhiganayna oo yarayn waxaa loo dhigi jiray qiso qosol badan qiso yaab leh oo fiican oo qosol badan loo dhigi jiray waxay qisadaas ku saabsan tahay dooli aba jiir waxa dhibay nafta iskugu keenay hal curi waa soo galaa hal xabo ka cunaa waa soo galaa hal xabo ka cunaa waa soo galaa hal xabo ka cunaa
shiray qabsadeen maalinka dambe waxay dhaheen saan ma anfacaayo waana la dhameeyey see yeelnaa talaa la keenay marka talo waa la soo jeediyey shirka albaabka waa u xiran yahay waxaa lagu taliyey waxaan suubinaynaa dooliga noogu geysasanaa waxaa loo dhiibaa gambaleel curiga markuu soo galo qoortaan u gelinaynaa mar allaala markuu soo dhow yahay galalow aan maqalno waa ka kala dhuumanaynaa fikradda waa la soo dhaweeyey waa la sacbiyey laakiin marka dambe waxaa la dhahay yaa waayahe dooliga geesiga oo curiga qoorta u gelinaayo gambaleelka yaa waaye nin walba wuxuu dhahay ani maahan anika alleheyka alla sheekadii marka saasay ku baaba'day inta badan walaalaha beelaha banaadiriga oo la isku soo duubay shirka hadalkooda iyo meelaha markay iskugu imaadaan waxay aad u dhahaan xaqaa naga maqan nusaa la nagu daray weligeedana xaqeena la qaadanayay xaqdaryaa la nagu wataa waxaa ku soo darsamay guryaheena la qaadanooyaa dhulkeena la boobooyaa waxaa ku soo darsamay waxyaabihii saami qaybsiga aan ku lahayn dowladaha lasoo dhaafay dhan waa naga maqan yahay markasta marka waxaa la dhahaa xaqeena yaa soo dhicinaayo marka waxaan u malaynayaa in la raadinooyo dooliga geesiga naqan lahay oo curiga qoorta u gelin lahay gambaleelka aa la raadinooyaa waa dad badanaana soo matalay dad badanaa banaadiri matalay baarlamaanka ku jiro iska daa wax kale soomaali weynti kale ee baarlamaanka ku jira waxay ku dhahayaan hebel iyo heblaayo oo beelaha banaadir matalaayo iska daa dadkay ka dhasheene annaka xataa waa ku khasaarnay xubnaha baarlamaanka oo tiradooda aad ogtay intay la egyihiin waxay ku dhahayaan dadka reer banaadirka matalooyo inay beelahooda wax u taraan dadku iska dhaafe annaga xataa saaxiibadeena baarlamaanka iskula jirnay wax ku khasaarnay ay ku leeyihiin marka waxaan aad u rajaynaynaa aan filaynaa sayid axmed sheekh garyaqaan dadka garyaqaanada waxay ka tirsan yihiin dadka adduunyada ugu muuqdo adduunyada markaa soo fiirista madaxweynayaasha hogaamiyayaasha halgamada siyaasadeed markaa fiirisid intooda badan waxay soo noqdeen garyaqaano maraykanka waxaa laga tirin karaa hadday intaasoo 40 madaxweyne soo martay ugu yaraan 30 ka mid waxay ahaayeen dad garyaqaano waa dhiiran yihiin shaqadooda u hufan yihiin marka saas daraadeed waxaan ku rajeynayaa master axmed insha Allah inaan naqatid geesigii gabalaalka intuu qaaday curiga qoorta u gelinaayo waxyaraan isku toosiyay galabtaan farxad waaye goobta la iskugu imaaday odayaal iyo garmadoobe dhalinyaro iyo gabdhaheena dhammaan golaha dadka jooga galad allaheena weeye haddii garyaqaanka beesha inaan garabkiisa istaagno gurmad aan u samayno go'aan weyn lagu gaaray ruuxii gees ugu leexdo gar waxaa loogu yeeshtay in ganaax xoog laga qaado gunta dhexdeeda la ciqaabo gorgor cambaar leh laga yeelo gobolkaas ma isku raacnay geesigeena axmed shiikha insha allahu guul waa helee niyadda iyo gooska adkeey rabbigaa ku garab qabanaayo haddii aad xaqa garab istaagtid gar eexa aad ka fogaatid inaad guusha helaysid facaana aad ka guul ka gaaraysid lama ma ku gortamayso goobta adaa u sareeya guulaheen garabka ah ku siiyo بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على بركة الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ولا ليال يا قبلها ولا الله رك ولا الله علماء أنت فديسو أما مشاني كسوكولنتاي أو كسوكولنتاي إن أي دويان
garyaqaan Axmed Maxamed Sheekh in ay soo dhoweeyaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان بلاش بنادر عن صوت تردد عن صوت ذكو بكرين ويقود الدنيا إنسان في لاي بقولت مية فرطيات سلامتين سلام كتب سلام كتب فرحت أي نقطة هاي مانتا ما شدينا البنادر ورن أي وذا الجوجان ما صوت ذكو بكر بنادر وات سلامتين بقولت مية فرط كذب أنت يتقاني أنت أنا أقوانين أما إداوان يسو سيدو كلوات سلامتين فرحة ما أنت أنا سوّد نمت وحي تهويل كينا أو كذا شيء باش بنادر أو لو يهي قواعلك لو يقانو قال مشوي مركان كفال وضو قال مشوي مركان كفال وضو سدح أذي أي كوكوبين سدح أذي إبراهيم علي أبي كرفودجر إبراهيم علي أبي كرفودجر إيوه حاج عبد مبارك إيوه باقي أحمد ميل والباء الجوكتان قدنا دابا إنسان فرحتنا الله خيب صر أي أيدين ليه فرحتنا مناسب كذا من سوكو بكرماء الحمد لله رب العالمين كذب هذا الهلمانكم بجرو إلى وف كيف انتكها فرحتنا هرتها بالحقيقة دي أنا بجر العنود مركا ويل كينا إلى وف كيف انتكها ويل كينا قارن ويل كينا أو أبو كاتها أحمد محمد شيخ نور وحو هميي الله وسقره إن أوكروا نقضه دت كمان تفعي سمشي كبوديان أما مضحضة مشي كبوديان أسجنا إنه كبودو صادر تذا حتى بش بنادر أن وضعنا هي سومالي ذكر كذا إذا ونيسو واحتركي سأنا قاعد نقانو صادر تذا وحنا أنا قاعد إذا قعد سنة إن أدنو ساعدان أتقعد نوسيسان وحله اللي كرماه كو وثاني وحايدين كله إذا كنت ساعد سنة ورهيدا فرحة مسوكو بكرو مركا سيداس إيانا بنا هذه الليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan oo isugu jiraan madaxda dhaqanka Soomaaliyeed madaxda dhaqanka beelaha banaadiriga aqoon-yahanada culimada siyaasiyiinta bahda saxaafadda bahda fanaaniinta iyo dhammaan marti sharafta kala duwan ee xafladdan ka soo qayb gashay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa in aan halkan ka caddeeyo anigoo ah garyaqaan axmed maxamed sheekh nuur in aan ahay musharax u taagan qabashada kursiga xildhibaannimo ee nambarkiisu yahay hoob 266 kursigaasna ay soo doortaan beelmeynta qalmashuwe oo ka mid ah beelaha banaadiriga anigoo isu arkay inaan ahay qofka ugu habboon ee kursigaasi ku matali kara beesha kursigaasi iskale iyadoona taa kaga dayanayo nabi yuusuf calayhi salaatu wassalaam markii uu lahaa ijcalnii calaa khazaa'ini al-ard innii xafiidun caliim iyadoo taana ay ka muuqato shuruudaha iyo tilmaamaha laga doonayo qofka xilka loo dhiibanayo oo ah
أمانه يقوم الله نوانكم هالعلم يا وصفها سي تلمامون كاس وصفيه ما حايكون كالفين أن حلك السلطة مدن يا المروين وحن قوان صدقين أن حلك السلطة كدي مركي عن أركي حقو يقول لي هي ودك هي Soomaaliya وأن جعلها أو إن أن كقيب قاطو دفاع دلكيسة دفاع دولكيسة دينتيسة يدتكيسة بقى أنا كقيب قاطو قواني دي سمسيرك إن شاء الله markii aan qiimeeyay baahida bulshada kursigan iska leh gaar ahaan dhalinyarada rag iyo dumarba ay u qabaan mas'uul ka warhaya duruufahooda iyo himilooyinkooda waxna ka qaban kara habeen iyo maalin arrintaas u istaagan markii aan dareemay in aan bulshada kursigaas iska leh loogu matalin sidii ay mudnaayeen in loogu matalo iyo anigoo isu arkay in aan xilkaasi gudan karo kana soo dhilaali doono waajibaadkaasi insha Allah markii aan dareemay in la gaaray waqtigii dhalinyarada fursadda la siin lahaa si ay ugu faa'iideeyaan dalkooda iyo bulshadooda ay matalaan maxaan qabanayaa haddii aan xilkaani ku guuleysto insha Allah mudanayaal iyo marwooyin haddii aad codkiina kalsoonida i siisaan waxaan ugu adeegi doonaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan beelweynta reer Banaadir si ay wada dhan yihiin waxaan ugu adeegi doonaa si daacadnimo ah kartiya aqoon ay ku dheehan tahay insha Allah waxaan teleefankayga iyo adeerisideeda aan ugu dhigi doonaa bulshadeynta reer Banaadir guud ahaanba kuwa xilli waliba ama goor waliba ay baahdaan ay heli karaan mana dhici doonto ilaaha duuraal ka noqdo bulshadeynta reer Banaadir qof kamid ah oo dhibaateysan inaan xaafadeeda iska joogo ama shirar ama waxyaabo noocaas aan ku mashquulo mar waliba waxaan diyaar u ah mudnaanteeda gowaad ah samataxinta beelweynta reer Banaadir waxaan mideen doonaa insha Allah bulshadeynta reer Banaadir dhaqankooda dhammaan si ay hadafkoodii u noqdo hal waayo waxyaabaha hadda laga faa'iideysanayo waa tafaraaruqa beelweynta reer Banaadir waxaana mudnaanta siin doonaa hadafkeedu ugu horeeyo inuu noqon doonaa reer Banaadir oo hal ah oo ujeedkooda hal dhinac wada raadsada insha Allah ugu dambeyn waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idin weydiisanayaa inaad codkiina i siisaan insha Allah alla hortiisa idinka hortiin waxaan ka ballan qaadayaa in aan idinku adeegi doono si daacadnimo ah hufnaani ay ku dheehan tahay waxaan rajaynaa insha Allah in aad ima hadin doontaan wax qabadkayga insha Allah aad ma wada mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ما شاء الله waxaan filayaa inaad ka bogateen ayaan aad aan filayaa insha Allah ta'ala walaalkayga Ahmed waxaan leeyahay insha Allah ta'ala ma wiilkeena Ahmed insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga baryeynaa haduu khair ku yahay inuu Allah subhanahu wa ta'ala ku fududeeyo haduu shar ku yahayna Ilaahay inuu ka qabto maxaa yeelay adduunyada iyo aakhirada way kala weyn tahay adduunyadan waa maalmo kooban ayaa la joogaa أخيرا لكن ماشي النهاية لو دمانا إيتا هدايبا وناك إيكوتا هاي إنا طمتا وشقيسد وناك إيكوتا هاي وإلهي نكوبة بدبادين هاي وحنكون لنا هاي إلهي هكو فضوضة إن شاء الله تعالى ولا الله فينك داودنا وحيد رجينا إن شاء الله تعالى هديت فينك داودتي ولا لك أحمد إن شاء الله تعالى قرب سي قرب كأيو باهي هاي ما أنت أديك أيوكو باهي هاي نخالو حوما تراي هفيرين لابوكم ما أنت اللي بوسيي وحابوكم سكرنا ويعني لو بالكبعد وحنا كيس أظن بناك تاجر هالكيس
arkaysa insha allahu tacaala barnaamijkeena inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa anigoo ah walaalkeen maxamed xaaji amiin iyo kaamirmaankeena nuur xaaji amiin oo noo soo duway xamar muqdisho noogu soo duway dhammaanteena farsamayaqaanadeena anagoo isku duwan waxaa idin leenahay maalinta idin qurux badnaato habeenka idin wacnaado salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh